maalinimadii axadda way taariikhdu ahayd 15 Oktoobar sanadka 2017 ayaa waxaa magaalada Seattle Washington howlkeeda New Holly lagu qabtay xaflad lagu soo dhaweynayay wufuud iyagu markaa ka socotay maamul goboleedka Jubbaland waxaana kulanka ka soo qaybgalay bulshada Seattle dhinacyada kala duwan haddii ay noqon lahayd cuqaasha culimada diinka waxa garadka dhalinyarada iyo hooyooyinka قبيل والله وجبوك تعيرتي جبلان 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 دغيو جاقاديو جكي هورمركي جاهيستو دهي قبيل والله وجبوك تعيرتي جبلان والله ولا جنتا جناري إفي واجبني معدنا بدل وجهه مدح جوهر وانتي سنبا جدل كوسي دي جبلان والله ولا جنتا جناري إفي واجبني معدنا بدل وجهه مدح جوهر وانتي سنبا جدل كوسي دي جبلان جليلو هلو جبلان عبدي جدي جبلان عجبي كير جبلان عجبي كير جبلان جليلو هلو جبلان عبدي جدي جبلان عجبي كير جبلان عجبي كير جبلان وبيجوله جير قرق واي بدجلا بشد جاد كسب كلون جمع لوغ هلو واو غار جوبي جبلان 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 وبيجوله جير قرق واي بدجلا بشد جاد كسب كلون جمع لوغ هلو واو غار جوبي جبلان 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 تحية دوغلو نقوتك جبال جدا مبيو جيفان مجد جعل شاي إسونا ووغار جبي جبالان تحية دوغلو نقوتك جبال جدا مبيو جيفان مجد جعل شاي إسونا ووغار جبي جبالان الرحمن الرحيم waa bilaabanaynaa umaleynaya waftigu waana soo gaaray waana soo dhaweynay waxaan ku furanaynaa marka koowaad aayadaha qur-aanka kariimka uu noo akhrinayo fadiilatu sheekh xuseen يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha guddiga qabanqaabada wali cabdi aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan ummadda jaalida raasiyaal ee ka soo qaybay shirkan Soomaaliya maqla jaalida raasiyaal ee ka soo qaybay shirkan aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan halkan waxaan ugu mahadcelinayaa kale to dhammaan dhalinyaradii ka soo shaqeysay muddadii waqtiga badan gelisay أنا نسيب ديرين هذا الكيجا أنا هذا الكيسي ديرين وأد بنوم هذا أمد الصومالية ده ماشي كساقيب كشيء دمانتين مركا خطبة ذلك سنوات السعودة إن شاء الله وما سنتين سليمان وجالية دو هل دونا إبراهيم سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مركا ugu horeysa waxaan rabaa dhammaan khiyaarta sharafta iyo xushmada mudan ee ka soo qayb gashay xafladan qiimaha iyo qaayaha leh ee aynu isugu nimi caawa ee aynu ku soo dhaweynayno marti sharafta inoo timi waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka bacdi runtii waxa mahad dhamaanteed u sugnaatay Allah subhanahu wa ta'ala inoo suurtageliyay inaynu caawa isugu nimaadno xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ee sida aadka looga soo shaqeeyay oo aan rabo halkan inaan uga mahad celiyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay rag iyo dumarba insha Allah ta'ala inta kadib waxaan rabaa inaan in yar oo warbixin ah ka bixiyo hadii aan leedmo jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Seattle Washington jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Seattle Washington waa jaaliyad aad u ballaaran runtiina waxaan oran karayaa waxay ka qayb qaataan horumarka dalka ka socda waxay ka qayb qaataan horumarka ka socda Mareykanka gaar ahaan gobolka Washington State ay degan yihiin waana dad wax qabadkoodu runtii muuqdo gudaha iyo dibadba gaar ahaan gudaha waxyaalaha muuqda ay ka qabteen haday tahay jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Seattle Washington waxyaalaha ugu horeeya ee ka qayb qaataan waxa kamid ah waxbarashada waxa kamid ah caafimaadka waxa kamid ah biyaha waxa kamid ah horumar badan oo kale oo halkan lagu soo koobi karin xaqiiqdii aad iyo aadna waan uga mahad celinayaa jaaliyada reer Washington State qiimaha iyo qaayaha ay leeyihiin iyo horumarka gudaha iyo dibadda ay ka muujiyeen insha Allah ta'ala inta kadib anigoo ka faa'iideysanaya munaasibadan waxaan rabaa inaan ka tacsiyadeeyo masiibadii ka dhacday caasimadeena Soomaaliya shalay oo la oran karayo waxay ahayd xasuuq runtii la oran karayo waxa lagu gumaaday maato birmageyda ah oo caruur iyo dumar u badan waxaan leeyahay dhammaan intii dhimatay Ilaaha Qafuurur Rahiimka inuu naxariisto dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadkii iyo eheladii ay ka geeriyoodeen samiriya iimaan ka siiyo insha Allah ta'ala waxaan kala rabaa in Allah intii ku dhaawacantay in Ilaahay u boogadhayo caafimaad degdegna siiyo insha Allah ta'ala mudanayaal iyo marwooyin waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro anigoo ku hadlaya codkayga iyo codka jaaliyada Soomaaliyeed ee reer Seattle Washington in aan iraahdo Soomaali meelay joogtaba waa inay u gurmato dadkii ku dhaawacmay sidii loo baadin lahaa dhibaatadii ka dhacday caasimadeena Muqdisho waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado martida sharafta leh caawa halkan inala joogta ee qiimaha iyo qaayadirinta mudan waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo iyagana inay waqtigoodii qaaliga u soo hureen inay la wadaagaan
jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Seattle Washington warbixinta qaaliga ay wadaan horumarka ay wadaan in alla intii halkan joogtana waxaan leeyahay iyo inta halkan ka dhageysanaysa ama ka daawan doontaba waxaan leeyahay si muuqata aynu uga qayb qaadanna haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala hawsha ay wadaanna aynu ka dhageysano waxa la wixii fariimaynu u dhiibi doonana insha Allah ta'ala odayaal badan iyo dumar badan iyo waxgarad badan ayaa kulli iga dambayn doona in insha Allah ta'ala wixii message aad u dhiibtaan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh haddana waxaan ku soo dhaweynayaa الشيخ الدكتور الشيخ معلم أحمد نور كسو دو شيخ بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ku hadlaya si gaar ah iyo jaaliyadda sida Salmaan sheegay baa waxaan soo dhaweynaynaa wafdiga waasiyada waaskooda wasiirka xildhibaanka iyo gudoomiyaha intaba insha Allah ta'ala waxaan leenahay ku soo dhawaada magaalada Seattle Washington oo runtii lagu yaqaano inay mar walba dadka si fiican ay u soo dhaweeyaan insha Allah ta'ala inta kadib waxaan rabaa inaan iraahdo barnaamijka ay noo soo gudbin doonaan oo ay aan fiirsan doonaan insha Allah ta'ala wixii jawaaba sida ugu haboon aan uga bixino iyo sidii la inooga codsadaba aan uga bixino insha Allah ta'ala wa markaynu hawsha iyada de warbixinteena siiyaan buu hadalkeedu noqon doona hadii Allah idmo intaas kadib waxaan rabaa inaan iraahdo waxa ka dhacay sida Salmaan buu xusay walaalayaal musiibo ummadeed baa maanta inagu dhacday marka musiibadaas inaanu ka wada dhiidhino inaynu ka tacsiino inaan dadkii u ducayno inaan hiiliyo hooba la wada garab istaagno waa waajibaad ina wada saaran ummadeenna waxaad moodaa ummadee lagu soo duulay oo ninba meel uu ka qabanayo wada aragteen haday noqonayso dilka inta leego loo geysan haday noqoto qaar kale oo si akhlaaqiyad xumo ah wax u fidinaya qaar diintii ka baxaya qaar nabinimo sheeganaya qaar ma akhlaaqiyad xumo kala sheegan yaani waa dad iyo dal iyo diin intiiba la baabiinaya way hadaynan inaga midnimadeen iyo waxdadeena la helina waxba inoo hagaagi maayo marka meel aan joognaba waxdadeena aan ku dadaalo sida jaaliyadda Seattle Washington ay ugu midaysan tahay magaaladeenu ay runtii xafladaheedu xitaa xafladaha kale uga duwan yihiin aynu ku dadaalo inaynu ummadda kale muslimiinta iyo Soomaalida sidaas oo kale aynu ugu wada gudbino ugu dambeyntii insha Allah ta'ala waan ka degayaa waxaan leeyahay mar labaad waftiga soo dhawaada insha Allah ta'ala waxaana ku talagelaynaa inaan si fiican ba idin dhageysanaynaa ويا نوسو قد بسان إن شاء الله تعالى وكجواب دونا فعل هان جزاكم الله خير بارك الله فيك. هذا وحن كسر دوينا يا أدر محمد دقناء. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام يا salaanta islaamka ee qaaliga aan idinku salaamaya salaanka bacdi marka ugu horeysa waxaan leeyahay wafdiga noo yimid heer qaran iyo heer gobolba isugu jira waanu soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay ahlan wa sahlan soo dhawaada ku soo dhawaada dadkiinii waxa hortiina fadhiya وجاليدي جبلان وي iyo dadkii reer Seattle sidii hore la idinku sheegayna dadkan waa dad wada jira oo isku xiran oo isku aragti ah oo meelna u wada jeeda weeye reer Seattle ku soo dhawaada marka jaaliyadii reer Seattle ku soo dhawaada marka labaad sidii hore ba loo sheegay waxaan ka tacsiyeynaynaa musiibada Soomaali ku dhacday runtii musiibadaas waa musiibo inaga inoo taala inaanu xalinana u baahan xal in loo helo mooyee u baahan tahay arintaas waxaanu jecelahay marka idinka noo yimid inaanu fariin ama dhambaal aanu idin dhibno aad naga gaarsiisaan
maamulka dalkaasayta isaga ah ka jira ee hogaaminaya. caalamku waa uu u soo jeestay inuu Soomaaliya baabi'iyo. dowladaha dariska ahna laga adeejiyay, iyagaana fangaraynaya waxaanoo ka dambeeya. waxaannu idinka codsanaynaa dhambaal inaad naga gaarsiisaan mas'uuliinta Soomaalida arrintaa inay xal u helaan. innagaa laysu kaana adeegsanayaa, wiilashannadii baa la adeegsanayaa, innagaa laysku kaana dilaya, laysku kaana baabi'inayaa. waana maraaxil uu caalamku soo maray weeye waxaan iyadu. ciraaq baa shalay lagu tijaabiyey oo ay ka dhacday, oo sidaa iyadaa dadku meydka ugu daadsanaan jiray 500. maanta geeridii waxay sii maraysaa baa la leeyahay 500. waa ayaan darro, waana wax laga dhiidhiyo weeye. marka walaalayaaloo naga gaarsiiya dhambaalkaasayta isaga ah ummaddii Soomaaliyeed, madaxdii Soomaaliyeed ee meesha iyadaa joogtay. haddaan taa iyadaa ka gudbo oo tacsida iyadaa aan ka gudbo, de waxaan leeyahay reer Siyaatalow, wafdigu waxa uu inoo wadana aanu ka qaadanno, aanan soo dhowayno. wax allaale iyo wixii dalka horumarkiisa ah oo ay noo sheegaan ka qayb qaadashadiisa dhinac kasto ay noqotaba, hiil iyo hooba, waa wax innaga inala gudboon oo inoo yaallo weeye. marka aynu ka dhagaysanno wafdiga, aanu soo dhowayno, aanu soo sawriyeyno. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddana waxaan ku soo dhoweynayaa ugaasyada Soomaaliyeed ka mid ah ugaas Cabdiqani. السلام والصلاة على نبينا محمد وعلى آله محمد وصحابه الأجمعين. أيها الأخوة، marka hore ilaah baa mahad leh, ilaaha weyn ee noo suuro geliyey inaan munaasabadan qaariga ku kulanno. ilaahayna weyn ee wax walba u sugnaadeen awoodda sare leh ayaan u mahad celinayaa. marka labaad waxaan mahad celinayaa odayaashii iyo bulshadii noo soo abaabushay halkaan naguna casuumay. waxaan kaloo soo dhoweynayaa si walaaltinimo leh, qalbi furan, ay ku dheehantaa kalgacayl, walaalaheenna iyo waftiga nooga yimid Jubbaland iyo meeshii kale ka yimaadeen labadaba. waxaan leenahay soo dhowaada, ku soo dhowaada walaalihiin. gadaal ugu noqon maayo, waxa aan nahay intii iga horreysaa ka hadashay. horena wax badan aan uga hadalnay inaan nahay, isku tilmaanno aanan nahay bulshada ugu wanaagsan jaaliyadaha ku nool Ameerika. jaaliyadda ugu wanaagsan inaanu nahay. ilaah baa mahad iskale noo suuro geliyey arrintaa. soo dhoweynta kadib waxaan jeclahay inaan wax yar aan idinka xusiisiyo madaxweynaha Jubbaland oo ah geesi dadkii u soo halgamay midowgii maxaakiimta islaamka ayuu ka mid ahaa. wuxuu ka mid ahaa intii dumaysay darbigii waloorada ummadda ugu kala xaraysneed. wuxuu ahaa kuwa taariikhda Soomaaliyeed ka warbixiso oo ummadoo dhan meel ay joogtaba ay tiraahdo 6 bilood oon soo marnay mar walba maskaxdeena iyo qalbigeena ku beeran. arrintaana ummadda Soomaaliyeed way og tahay, amaaluna ku leeyahay. wuxuuna gudoomiye ka noqday meesha uu hadda madaxweynaha ka yahay. taana waa cisi iyo sharaf gooniyuhu ku leeyahay. amaalna waa uga haynaa, ummadda Soomaaliyeed oo dhanna waa uga amaal haysaa. anigu waxoogaa aqoon dheeraad oo yarna waan u leeyahay. marka intaasaan rabay inaan idhaahdo salaan gooniya asaga aan u diro. bulshada uu ka soo jeedo dhanna waa salaamaya iyo meesha uu ka taliyo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. kaltuun ku soo dhawow. عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مرت شرف كلا isugu timid xafladan qiimaha leh ee ku soo dhaweynayno martida nooga timid Jubbaland. waa salaamantiin, waana salaamaya waftiga culus ee ka yimid Jubbaland. salaanta islaamka ku salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. anigu wax badan dhihi maayo, kulay warbixinta ayagaan ka sugaynaa horumarka wadanka iyo wixii aan ka qabsan lahayn ayaga ayaan galabta kaga fadhinaa. waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed aniga oo
jaaniska ka faa'iidaysanaya musiibadii qaran ee ummadda Soomaaliyeed ku habsatay ayaan tacsiyo u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogto anoo uga tacsiyeynayna musiibada ku dhacday Ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan ka baryaa tii ugu dambeysay inuu ka dhigo ummadda Soomaaliyeed mid ay isku afgarato oo cadawgooda meel uga soo heshiisa Allah ka dhigo anigu gobolka Jubbaland baa ku dhashay waxaan ahaa ardadii wax ku baratay oo meeshan ku soo barbaaray ma sha Allah haddana rajo weyn ayaan ka qabaa inaan dib ugu noqdo qof kasta oo Soomaali ana Jubbaland way u furan tahay wixii horumar iyo wixii dhaqaale uu ku darsanayo marka waxaan oranayaa waftiga qiimaha leh ee wasiirku hogaaminayo iyo xildhibaanka iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo ugaaska iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee u dhalatay gobolka Jubbaland iyo dadka Soomaaliyeedba inay u furan tahay oo tahay meel Soomaalidu ay isugu imaan karto oo maanta qof Soomaaliya ee xuquuqdiisa aan laga doodsiinayn intaas aan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh injineer Nuurgaas بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هذا ردم إلهي بيسوقناتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبت قليل نحريس كوركي ساحات وهذا شرف نوغوه دانو النهاي رير قبل كواشنطن إن عاوة أي مرتينو يهين وفد كسعودة جبلان وان كسو دوينينو مقالة مدحدة قبل كان واشنطن دقالة مقالة مدحدة دقالة مقالة مدحدة يدو حويان أولمبيا لكن مقالة مدحدة دقالة سيدا كسمايو بوتاي مقالة مدحدة دقالة جبلان inaanu idinku soo dhaweyno sharaf weyn bay noo tahay waxaa mahad mudan guddigii isku soo dubariday xafladan qiimaha leh waxaa xusid mudan in aan anigu si gaar ah taariikhda Jubbaland ama Kismaayo aan wax ku leeyahay waayo 10 sanadood baan ka shaqeynay oo mas'uuliyiinta gobolka aan ka mid ahaa marka 4 caruurina waa igu dhalatay berigii aan joogay Jubbaland aan joogay Kismaayo aan deganayn mahmaah baa la oran jiray la yiraahdo Kismaayo iyo Kista laakiin arinta waxa bedelay dhawaan wafdigii ra'iisul wasaaruhu hogaaminayay ee golaha wasiirada markii ugu horeysay taariikhda xamar meel ka baxsan ay ku suurowday inay ku shiraan Jubbaland magaalada Kismaayo inay ku shiraan ra'iisul wasaaruhu wuxuu yiri waxa la oran jiray Kismaayo iyo Kista waxa noo muuqata in Kismaayo badman lay ka buuxo muufo maraqle iyo waxyaabo kale dhowr arrimood oo kale ku sii daray marka Jubbaland bariis faleeyahay marka Jubbaland anigu aqoon gaar ah u leeyahay waliba si aada ayaan u dhex maray oo aan koone ilaa koone u maray warshada hilibka ayaan madax ka ahaan jiray ee Kismaayo nasiib darro waxay noqotay markii dalku burburay oo aan Kismaayo ku soo noqday oo warshadii aan ma garanaysaa mas'uulka ka ahaan jiray waraaqihii aan anigu saxiixi jiray hudheelada iyadoo faraha la iskaga masaxayo aan ku arkay nasiib darradii ugu weyneed iyo ruugadii ugu weyneed taasay ahayd iyo dhulkii wax soo saarka iyo makiinaduhu noo yiileen oo dad qaxootiga u degan yahay waxaan aad ugu faraxsanahay maanta Kismaayo inay leedahay dawlad goboleed uu hogaamiyo madaxweyne aanu aad iyo aad madaxweyne goboleed aanu aad iyo aad
u qadarino oo runtii Soomaaliya kule magac aad iyo aad u wanaagsan iyo taariikh aad u wanaagsan kule oo ah markii ugu horeysay oo dawlad goboleedyadu ku shireen waxa ay dhigteen miisaskooda hortooda waxay dhigteen calamadoodii bay dhigteen madaxweyne Axmed Madoobe arinta waa diiday waana ka ururiyay calamadii dawlad goboleedyada wuxuuna dhigay calankii Soomaaliya ee buluuga ah xidigta shanta lahaa ayuu dhigay marka maanta dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe ismaandhaaf ka taaganaynu wada ognahay si loo soo afmeero oo loo dhamayo arinta waa ka dawlad goboleedyadii isugu yeedhay ee shirka hadda soo dhamaaday ka soo baxay ee baaqa uu ka soo baxay ee dawladda dhexena ay baaqii soo dhaweysay oo isugu yeedhay dawlad goboleedyada si loo dhamayo ismaandhaafka iyo khilaafka dalka ka taagan marka taariikh weyn buu ku leeyahay Soomaaliya aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wixii wadanka ka dhacay tacsidii dadkii ga horeeyay baan la qabaa wafdigana aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa inay waqtigooda noo soo hureen oo noogu yimaadeen gobolka ugu shisheeya marka la eego wadanka Mareykanka xagga koonfurta xagga galbeedka ugu xiga inay noogu yimaadeen waqtiga noo soo hureen soo dhawaada waanu idin soo dhawaynaynaa insha Allah taala wixii aan magaranaysaa noo sheegtaana waana idinka dhageysanaynaa waxna waa idinka oranaynaa haddii Ilaahay idinka dhigo wallahu waliyu tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullah ما سنت إنجنير نورغاس وقت واسي قابنا عندنا وحن ويريا جناصر عبد الحكيم وفدية ووزيرك كم يحيي يو سلطان كسلادين تا حلبانك يو قدوميها ركت كناعسية جبلان أدبان لا يوصل وهذا ملو حن دقنها أنكو على كتشيدة وآد عالم كوفق وفود نوتي ما دانا ما بتشرتو مركز جد كأدير أو تصوم مدين بمحوها أنا دين كم هذين هنا أنت تصوم مدين أنا جو محوها مقالة دي أي تهاي أو دقن أو بان مركز سيس على صوص على أدو لبصده أنت عن سيس عوني أنت عن صوص عنيو مركز ما دام هذا كان وقت ما دين أد بان كم هذين إياه تعسيدي أضياش عن لقبه dadka soo qaban qaabiye xafladatan laftooda aad baan ugu mahad celinayaa waxaan inta ku dari lahaa oo yar ah oo practical ah wadan kastaaba wuxuu ka hormaraa wafdigaana u sheegaya waa policy-giisa ama siyaasadiisa uu degsado buu ka hormaraa wadan kastaaba siyaasad ganacsi oo wanaagsan hadii Jubbaland ay la timaado waxaan shaki lahayn inay wax badan gaarayso state kanaan joogno diyaaradda Boeing ay sameynayso Dreamliner la yiraahdo markii la rabay in lagu khasbay inay gobolkan ka samaysato ilaa 7 bilyan bay siisay dawladda state kaano si uu u joogo maxay yeelay cashuur bay hadda waxay uga qaadanaysaa shaqaalihii iyo lacagtii indirect bay soo galaysaa wadanka Dubai waxa ka dhamaaday petroleumkii markii arkeen in petroleumkii ka dhamaadeen aqli baa laga shaqeeyay warshadayn u soconaa baa la yiri waad aragteen oo boortiskii dhamaabay dhaheen free weeye free waxa ah وبضاعات كنسينيست كليه لكن إن دايركت بوحة لقاها قاضية أنت لقاها قاضي لها توبنكيد أما هوتيل باللقاها قاضية أما فيزا لقاها قاضية أما وراقي دوكيومنتيشن باللقاها قاضية أما مركب كاللقاها قاضية أنتو تشوقة أما ديارة داتورها عسيد باللقاها قاضية مركب هب بدن أو إن دايركت باللقاها قاضية مركب وركينا وديسن دونا حدات سياسة فرفرتان أنا مثلاً بعشرة وكلانه سومالون وحيتين هذا الربح أركيسه ريحن ما تقان وأنا حقيقة لما وقته هدي أنا أركو إنسنتيف بدن أو ماشي كتيرة نكساوا إيمانية بوساسو حان كرسي قريشان دبخة قروا أنا وكرسي قال كعيرنا وكرسي هذا أنا محاوس صعود إيران كسماية ما وكرسي أو بنك إفتن بنك اللي يراهدو وسيف عرونتي نوجو هيرجلي
marka meesha haddoo soo soconnaa waa kismaayo haddii warkiinan maanta aan u qalayna markaan idin maqallo ka bacdi haddii siyaasaddu furfuranto oo wax soo dhaweynaysa aragto waa imaanayaan dadku waa la imaanayaa nin kastaana waa lacag gashanaya intaasaan idin leeyahay waana mahadsantihiin kulligiin haddana waxaan ku soo dhaweynayaa abukaati cabdulaahi diiriye jaamac abdi ku soo dhawo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan u maleynayaa hadal badan ma hayo dadkii ugu horeeyay ayaa hadlay waan soo dhaweynayaa wafdiga Jubba Soomaaliya dadka Jubbaland bay afka ka wada barteen laakiin Jubba waxay ku taallaa Soomaaliya magaalo madaxda Kismaayo iyo nawaaxigeeda waa dhulka ugu fiican Soomaaliya anu mar baan tagay ama laba jeer baan u maleynaa inaan tagay labada jeerna waan jeclaystay mar waxaan geeyay gudoomiyaha jaamacadda Kuwait waxaan xasuustaa inaan geynay beertii Xaaji Cabdi Warfa Allah u naxariistee wuxuu yiri maan arag meel xoolihii iyo baddii iyo beerihii ay saa isugu qufulan yihiin adduunka u maleyn maayo meeshaan oo kale inay jirto waa dhul aad u wanaagsan oo runtii haddii wax la geliyo investment la geliyo Soomaaliya oo dhan ay deeqdo muxuu ahaa hadda waxaan anagu adinkayna ka rabnaa inaan noo sheegtaan qorshaha dhow iyo qorshaha fog xagga developmentska Jubbaland markaad noo sheegtaan waa baraarujinaynaa dadka waxaan u sheegaynaa in Jubbaland dhammaanteen aan u haajirno hadal badan ma hayo waa salaamantihiin soo dhawaada waa mahadsantahay abukaati cabdulaahi diiriye haddana waxaan ku soo dhaweynayaa ganacsade ka mida ganacsatada magaalada maxamed cismaan gari hoostaydu fadhiya بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إن هذا الكوناء جيسي أنت اللي أوران لها وضياشي جوه ريبايري هذا واحد ليه هاي إن وفد السود وهذا سياتل ومقالة وناكسن إن وحي أدناش شكتان أيما أن نكون حقوق عادنا إننا إن كل واحد يلتهاي هدان أنا قلنا إسرائيل بهذا الكسيود أو ماله بدن كهذا waxaan ku noqonayaa intii ay ragga iga horeeyay ay sheegeen marka wafdiga soo dhawaadaan leeyahay wixii wanaagaha ee aanu sameyn karnana waanu idin la share gareynaa marka kadib salaamu calaykum insha Allah haddana waxaan ku soo dhaweynaa dhinaca gabdhahan u leexanayaa saxan ku soo dhawo marwooyin culumaa diinka martida sharafta leh wafdiga noo yimid oo nooga yimid Jubbaland aad iyo aad baan u salaamayaa aad baan in soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada siyaar Washington anoo ku hadlaya gabdhaha siyaar Washington aad iyo aad baan wafdiga gacmo furan baan ku soo dhameeynaa xiiso badan iyo kurbo badan iyo wax badan baa wadankeena noo haya waan harsan la'anahay mala maqlaya horto waraabin aad iyo aad baan wadankii ugu kurbaysanahay waxa weeye hooyooyinka iyo dhalaanka aad iyo aad baan dhulkan ugu dhib qabnaa wadankeena aniga waxaan ka soo jeedaa Jubbaland baan ku barbaaray Jubbaland baan ku ubadkii ugu horeeyay ku dhalay Jubbaland baan intan kula soo ekaaday intaan hadda joogo qurbaha ma ogiye waxa weeye Jubbaland waa dhul barwaaqo sooran ah waa dhul waxa weeye maatida koriyo waa dhul qofkii dhaho wax baan ka qabsanayaa hanti ay taalo oo wax laga qabsado beeraha kalluunka wax walba waxa weeye waa dhul aad iyo aad hodan u ah waa wadankeena aad baan xiiso ugu qabnaa waftigana waxaan ku soo dhaweynayaa sida wacan uu noogu yimid warbixin fiican baan ka sugaynaa warbixintaasoo annagoo aan dhegta u taagayna taan wax ku qabsan lahayn insha Allah tan kale waxaan ka tacsiyeynayaa musiibada qaran oo ka dhacday wadankeeni waxa weeye ilaahay idinkii inta dhimantana Allah u naxariisto sabir iyo iimaan Allah siiyo dadka ay ka tageen waxa weeye wax aan ka maanta annaga iyo hoolba iyo waxa weeye dhul nabad ah joogna maadaama nafteenu nabadeena ay tahay nabad qurba ah oo qurba joogto
oo ilmo iyo dhibaato iyo wax walbaba aan u taagayno because dhulkeena haddaan joogno waxaan ahaan lahayn hadba lugba meel baan dhigi lahayn hurdo fiican baan heli lahayn laakiin wax loo bardhigayaba ma ahan annagana wadnihii baan sii gooya hiqdi iyo dhibaatadii baan naga badatay waxaan wadankan gaalada iskugu dhajinayno waxa markaan maqalno maanta intaas la qarxiyay dad islaam ah oo islaamnimo sheeganaya oo kula jismi ah oo wadankaadi dhex jooga oo dhibaatada musiibada qaran sameeynaya everyday waa wax aad iyo aad looga kurboodo marka waxaan sheegayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogto in dhibaatadaasayto musiibada qaran loo gurmado oo iyo howlba lala garab istaago haddaan haweenka nahay anagu kurba aad badan baaban waaba noo sii dheer tahay oo meeshii wadamada ilmahan ku haynilaanahay runtii markaan daacadda u hadalna ilmihii baan ku haynilaanahay meel ilmihii aan ku korinaan laanahay cunugi meel aan ku baarbaarino wadankii waxa weeye waa cunugii lagula haysto waa cunug garbaha laga haysto oo adiguna dhashay marka ilaahay idinkii wadankeena ilaahay nooga dhigo barwaaqa Allah nooga dhigo nabad Allah nooga dhaliyo musiibadan ay maalin walba wax qarxinaysa Allah naga qabto waxa weeye nin walba indha dheer hayeesho hadalka ma sii badinayo waan salaamayaa haddana waxaan ku soo dhaweynayaa abukaata Cismaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum haddii hadal jacayl aan soo istaagnay wixii la rabay qasdiga dhan waa la wada hadlay laakiin waxaan ku hambaliyeynayaa horta nin walba wax buu sheegtay Kismaayo raggii wax ka dhisay aniga 60kii xorriyad markii la qaatay markii la dhisay dekada iyo jidadka lagu sameeyay warshadaha lagu sameeyay mas'uulkii joogaan kamid ahay raggii wax ka soo dhisay kamid ah Kismaayo marka waa qana taariikhdeeda iyo ummadooda si ay isku xirnaayeen marka Soomaaliya meesha saldhig ugu weyn oo lagu dhaqaalaheeda iyo mataqaana lagu ilaaliyo waxa way baasi jubal dhijiri magaca Kismaayo waxa loo yaqaan baasi jubbo marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wafdiga noo yimid waxaan u maleynayaa sana hore inay hado maleynayaa wafdiga kale reer Kismaayo ka socdo ayaa noo yimid sidoo kale aan soo dhaweynay marka waxaan u maleynayaa reer Kismaayo waxay og yihiin dadka jacayl nabadda iyo mataqaana horumarka jacayl inay u badan yihiin siyaaso marka wafdiyada saasay noogu imaadeen waa soo dhaweynaynaa wafdiga iyo wasiirtii la socotay marka warka inaan ku dheeraado ma rabin marka wixii tala iyo wixii fikrad ay noo wadaan waa ka qaadi doonaa wabillahi tawfiiq assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ma santahay waqti haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Cabdimaalik ku soo dhawo Cabdimaalik Xasan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan u hambaleynayaa hor dadka soo casuumay xafladan dhammaan aad ay u mahadsan yihiin oo shiino ugu horeeyo ma sha Allah waxaan kaloo soo dhaweynaynaa wafdiga ballaaran ee Jubbaland naga soo booqday welcome to Seattle dhammaantiin ma sha Allah waxa weeye dhibaato badan baa iska jirta laakiin dib baan u wada hadli doonaa xafladda markay noo dhamaato iyo qof walba iyo cid walba waxay qabto ama dalka ka qabto ay ka wada hadli doonaan hadii Ilaahay raali ka dhigo welcome to Seattle waana mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaah haddana waxaan siinaynaa professor Cabdiwali السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku faraxsanahay horta markii saddexaad inaan ku soo dhaweyno wafdi reer Jubbaland hadda ka hor gudoomiyaha gobolka Jubbada Hoose baa halkan yimid marna wasiir annaga naga tirsan state-ka ka tirsan bay ahayd baan filayaa inaan ku soo dhaweynay laakiin wafdi dhammaystiran oo hogaaminaya wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah oo ku jira xildhibaankii wakiilka yahay oo Chamber of Commerce oo misana Chamber of Commerce oo heer qaran xubin ka ah misana afayeenku ugaasiyada uu ku jiro waxa weeye sharaf bay noota waxa iyaga idinkana sharafidiina ah halka aad joogtaan waa Seattle Washington kaliya ma aha waa Seattle Washington iyo hareeraheeda magaalooyin ku yaala laakiin waa gobolka Washington weeye hoolka aad joogtaan qolkan ku xiga
waxaa weeye meeshii lagu asaasay jaaliyad Jubbaland tii ugu horeysay oo dibadda laga sameeyay tii ugu horeysay halkanna waxaa weeye meeshii ugu horeysay oo shir jaaliyad Jubbaland oo leedahay lagu qabto yaa joogtaan waxaan kaga duwanahay jaaliyadaha kale waxaa weeye marba shaar baanu xirannaa shaarka Soomaaliga aanu xirannaa shaarka Soomaaliga aanu xirannahay waa mid guud anigu waxaan afayeenkii jaaliyadda Jubbaland Diaspora Forum of State Campaign Washington gabdhihii idin la hadlahay halka kan waxa weeye gudiga dhaxana waa ku jiraan waliba mid waa gudoomiye ku xigeenkii gudiga oo idin la hadlay marka hadlaysay dadkii idin hadda aad arkayseen marka waxa weeye markaanu haddii ay jaaliyad kale maxaa la yiraahdaa oo state kale ka timaado haddaan halkan joogno iyo haddaan meel kale ku soo dhaweynaba isku sibay noo tahay because hal Soomaali baana waxaan idinka sugaynaa inaan helno warbixintii meeshii wax ka jiraan wixii aanan ogeyn waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano wixii horumar aad samaynaysaan wassalaamu calaykum xaliima saacadiye ku soo dhawo kaala dadka boorka kaci bismillaahi raxmaan raxiim waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed ee meel walba ka timid Jubbaland kaliya ma joogto Soomaali weyn dhan baa joogta ii muuqata waa idin soo dhaweynaynaa wafdiga sharafta leh ee noo yimid uu hogaaminayo ugaaska wasiirka xildhibaanka afhayeenkeena dhammaantiin waxaan leenahay soo dhawaada culimada magaalada siyaara ii muuqata aqoon-yahanadii baa ii muuqda dhammaantiin waxaan leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh haddaanu saacad ka hor baa hurdo la iga soo kiciyey waa iska xanuunsanaa caawa laakiin meel aan ka hari kara ma joogo sababtoo ah Jubbaland haddaan maqlo waxaa ii muuqata gogol Soomaaliyeed waayo galmudug ayagaa taagan Jubbaland ayagaa taagan maamul goboleedyada ayagaa suuca waxaan leenahay waa guul u soo hoyatay Jubbaland aad baa ugu faraxsanahay inay noo yimaadaan wafdigan awalow bismillaahi yo ayadaha quraan haddana alxamdulillah dad islaam baynu nahay ilaahay dad yaqaana shaahata baynu nahay liibantan ballaaran bulshadan u furahayaa baryada eebbiyo quraankan ku baadinayaa awoodana waxaa iskale eebbaheena weyn awalow bismillaahi ayadaha quraan ilaahay dad yaqaana ashahata baynu nahay maalinta xafladina lagu beegayo barqad leh buruudkiin iyo nasiibkiin habaarugan sida badiyo wabiga qayrkiinu baaxad noqoy sida badiyo wabigu qayrkiinu baahsana awoodana waxaa iskale eebbaheena wayn aamin wada dhaha ilaahay inuu aqbalo salliga nabiga iyo dhammaan suuradaha quraan oo santa aan qaada sudan baan ku darahayaa oo fataxan sugay ayaan saarayaa dibnaha subax khamiisaad ayaan sawd ka dhiganayaa inaa fatax bay hor socotoon ku soconayaa oo caawa arraxmaan ayuu saacu ii hayaa intiisa bixooyin baan soo akhrinahayaa weliba saamiya xambaan subcinahayaa oo saadirkan tuugi ducaan saa u shubahayaa simocil basiirow sahalnaa muraadana oo daa'imkan tuugay rabbigeenna deeqda badan danteennu waa nabade Jubbaland noo dadaal dacwadu waa cayba Jubbaland noo dadaal dadkeennu waa baabaeene noo dadaal kursiguna ma deeqa Soomaaliyay dadaal darajo rabbi baa baxshee deeqna lagu ma helo dulqaad badan Axmed Islaam baa dadaalka wada maxamuud dulqaad badan Axmed Islaam baa dadaalka wada maxamuud sayid baana dacal taagan dawladda deeqalaalehe ammaantoodu durugsanaa
oo daa'im baan tuugay rabbigeenna deeqda badan dowladda lama diida soomaaliyey dadaal agoon baa daahsan soomaaliyey dadaal dadkeennu waa hoobtay soomaaliyey dadaal qaraxa waa ku daalnay soomaaliyey dadaal dumarkii waa dulloobay soomaaliyey dadaal moshinku waa ceebe soomaaliyey dadaal dowladdu sharaf weeye soomaaliyey dadaal dowladda jubbaland ammaantoodu waa iska dahab soomaali bay u duubatay yaygu diidi karaa mas-uuliyiin sharaf laba maamulkii ka timid mas-uuliyiin sharaf laba maamulkii ka timid ugaas cumar oo rag adag baa la aadayaa wasiir cismaan xuseen ayaa loo abtirinayaa mudana xildhibaan xuseen baan abbaarayaa guddoomiye rabbi baa loo abtirinayaa madaxda jubbaland ammaantoodu waa muhiim masiibada dunida rabbiyow ka magangelye casuusuljibaaro adaan kuu dirsaday codsiga casuusuljibaaro adaan kuu dirsaday codsiga cirka adaa taagayo ciidda gogolka dhigay oo caalamkoo idilna adiga dhammaan xukuma ciddaa doontaa adaa saacad caymin kara allow jubbaland oo cadowgeeda coosta mari madaxdii weeyaane rabbiyow masiibadaba ka dhowr madaxweyne axmed islaan allow caafimaad ku sii awooddana waxaa iskale eebbaheenna waayin malaa'iga ururay arrintiinnu ha iltiraan ifka ku liibaana qayrkiinnu abadda noqoy oo afadiya qaraxda rabbiyow ha iga akayn yaasiimada adag albaabaan idinka dhigay ilaahay cir ka taagayoo ciidda gogolka dhigay oo buura kalacayna webiyaal inoo camiray badaha cartamaaya booskooda wada cayimay oo caalimkoo idilna rabbiga codsiga wadow calaacalahaan u taagnona caawiyow casaawajallo waxaan caawa kaa codsaday calanka jubbalandna sharaftiisa dib ugu celi dulucda suugaanta iyo dowga iyo murtida dibnaha lama mariyo hadalaan dariiq lahayn laguma deelqaafa diiwaanka waxaan ku jirin xaqiiqda lagu dabaala run lama dafiro oo dowladnimo doonisteedii dadkoon aqoon raggii daadihin jiro duubiyada ahaa war koofi nimankii dilaa duubka noo sidaan diyaaraad lagula diriro dib aanu noqon madaxweyne axmed islaam baan ammaanayaa soomaali u dadaalayo oo dulqaadka badan jubbaland waa dowlad culus yaygu diidi karaa jubbaland waa dowlad culus yaygu diidi karaa mar labaad waxaan soo dhawaynaynaa madaxda noo timid waxaa idin leenahay ku soo dhowaada magaalada siyaar washington mikrofon ku soo dhawaynayaa maxamed sheekh asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu keliya waxaan ku darayaa basically in maaragtay taytaladooda iyo magacyadooda la sheegay inaan mar labaad ku noqdo run ahaantii waxaa aad ugu faraxsanahay kismaayan ku dhashay ku soo koray ku soo barbaaray aabbahay sheekhu beledku ahaa waxaa jiri jirtay waagii hore kismaayo qofkii yidhaaho sheekh xasan bashiir ma aqaan inuu reer kismaayo ahayn basically masaajidka magaalada ku yaallo ayuu imaamka ahaa sheekhu beled buu ahaa gabdhaha magaalada 90% isagaa meherin jiray marka basically qof walba wuu yaqaanay marka maanta waxaa inoo jooga marti sharaf cusmaan xuseen fayruus fadlan istaag wasiirka qorshaynta iskaashiga caalamiga ma aragtaan cusmaan ku soo dhawaada cusmaan xuseen xirsi xildhibaan jubbaland ku soo dhawow waxaan idiin sheegayaa xuseen iyo aniga xalay uu xasuusiyey 2 years ago conference waxaan iskugu nimid eleya barkhad ninkan soomaaliga oo actorka soo ma taqaanaan barkhad aniga isagoo la sawran geesaha ka taagan buu xalay tusay waxaan israa xildhibaankii meelaha weeye laakiin ma baan ogeyn
ninkan inuuba diaspora ahaa oo reer maraykan ahaa uu conference-kaas uu ka qaybgalaya aan ka wada qaybgalnay laakiin kii labada New York lagu dhiga maahan arag macnaheedu waxay ahayd inuu wadankii aaday Shaabir Raafi Kaahin waxa weeye xogayaha guud ee rugta ganacsiga ee Soomaaliyeed Chamber of Commerce was a very important role of Somalia Mr. Shafi please runahantii Chamber of Commerce wadanka dhaqaalihiisa gobolka dhaqaalihiisa meeshu ka dhaqaaqay way qof allaale qofkii ganacsi doonaya ama xiriir doonaya inuu wadanka horumar waa rag uu la xiriir lahaa waxa ugu dambeeya oo ugu dambeeynin hadana hogaaminaya ugaas Umar Xiirey oo ah afayeenka salaadiinta Jubbaland ugaas Umar waad arkaysaan waa ninka labada tusbax ay la wata magaalada joogo waxa weeye qofkii isku daya inuu suldaannimo ama ugaasnimo isu sharaxo isagoo aan soo marin ugaaska isaga iska wareeli doona qofkaas marka walaalayaal aad baan ugu faraxsanahay diversiga caawa jira iyo madaxda noo timid hadalkii waaynu badinay waxaan filayaa inaan fursadan ayaga siin doono inaan ka dhageysano waxoogaa hurdada aad ku jirteen baan idinka kicinayay aad baad u mahadsantihiin Sheekhul Qaadir idin la hadlaya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh waa mahadsan yahay haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa Khadija Imberwa martidina in koyta salaantan si assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum assalam ani Khadija Imberwa waaye siyaara Washington ka soo dhawaada martidina in koyta barbaarta dhalinyaradana siin salaami akhyaarta siin salaami maamayaalka salaami salaanta qaaliga haya siin ka salaami insha Allah wasiiryaasha dadkii martidana in kooyana siin ka soo dhawaada siyaara Washington waato soo dhawaada welcome to the siyaara dhaheena gaalad unu madane siin salaami salaam boqol tumni afart quraanka dadisa siin ka salaami intii akhyaar ahayd intii ulum ahayd intii gabdho ahayd intii maamayaalka ahaayana kole martida sharafta badan ahayd siin salaam ma kismaayo wala dhahe kismaayo hadii kismaayo dheegti dadkii boorka iyo sisanta iyo macansarada saliida keenay unuku way hada dadkii darad imaadeen maxaa rabaan malaykayna iyo muufadayna in arab ku shubtaana wadankana dadkii iskale unukuna weydiiya dad gooni meel gooni anaga imaanayseen wadanka dadkooda la weydina markii kor laga imaado dadkii wadanka iskale la weydina hey wadankaana rabnaa ina galno welcome markaas ay idin dhahayna mooskayna ka soo dhawaada malaykayna ka soo dhawaada embahayna ka soo dhawaada babaykayna ka soo dhawaada martida hadin ilaahay wadankayna maslaha Allah nooga rido wadankii waa u hilowni inaan tagnaa rabnaa meeshan meel maaha udur anaga bixi waaye wadanka ilaahay maslaha Allah nooga rido wadankayna inaan aadna rabnaa ilmi inta lama karaay hadii wadankii joog laan 24 saac dugsiga loo diri lahaay iskuul aadi lahaayeen iyagu mashquul way hadii ilmi mashquul ma qabaan hal mar iskuul dira galabtii waa fadroobayeen wadanka ilaahay maslaha Allah noo rido beer falowna waa townay ina beerahayna falana rabnaa ina beerahayna falana ina badar aan soo gooyno kismaayo dadkii badarka keenayeen unukuway hadda kismaayo bilaa ka dhamaan way say badar u keenayna dadkii badarka keenayeen kismaayo laga dhigay unukuway dadkii beeralayta unukuway hadii unukuba dhulkana laga haastaa dhulba mutagi karna meeshan wax midin yaal hadda say kismaayo maslaha ka iimaanay noo dooda maslaha Allah keena noo du'aaya uluma Allah maslaha Allah noo keena wadanka ilaahay wadan Allah nooga dhigo wadankaayna rabnaa inaan ku naqanno wadan dadaad wadan noo ma aha dadaala nimanka dadaala unuka bil'aan way ma dadaali karan dadkii noo dadaalan idinku way ilaahayna Allah idin garab galo unukana hadaa tukuna faataa idinku soo kaalmanayna hayo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وعليكم السلام nin dhalinyaro oo ganacsi ka furtay wadankii gaar ahaan Jubbaland oo xoogaa dhiirigelin raba inuu maaragtay jaaliyada uu maaragtay ku dhiirigeliyo wadankii dib in loogu laabto Jamaal Dar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أن أدبا ذي سلامي رسيارل أن وسود وين مرتدى الشرف تله السلادين تا حل بعنا وزيرك يقدومي هربت جناحسيا أن أنا أقول بورلان بانهاي
dhalinyaro badan oo halkan jooga iyo odayaal badan baan aqaanaa oo xaaskayguna reer Portland bay tahay waa reer Portland inkastoo reerkaygu u raray anigu 4 sano ka hor magaalada Nairobi oo halka deganahay waxaan si gaar ah u salaamayaa Sheekh Axmed Nuur oo ah sheekh caalima oo runtii tusaale weyn u sameeyay Soomaalida iyo masaajidada North America iyo Sheekh Axmed oo halkaas gadaal fadhiya insha Allah asagana aad baan u salaamayaa waxaan rabaa inaad ii sheego waa hal sano iyo bar ka hor baan anigu Kismaayo tagay waxaan nasiib u yeeshay inaan noqdo qofkii ka yimid qurbaha oo Jubaland TV waraysi ka qaado oo ugu horeeyay anoo dheendheena markaa ganacsi Nairobi ganacsi markaa ku lahaa yaa waxaan la tagay fikrado badan fikradii markaan la dhacay waxay ahayd inaan furno company leeyahay Kismaayo Cable Kismaayo Cable waa sida Comcast-ga ama wadankan aan ka daawano TV ilaa 130 channel ayuu soo saaraa waxaan u qaybinay hadda magaalada madaxtooyadu ku jira wuxuu ku jira airportka wasaaradda walba ku jira wasiirka markaas baranay telefoonka isku baranay oo isu sheegay wuxuu yiri anugu TV-ga ugu jira marka horumarkaas aan wadan ka qabanay maanta waxa ka shaqeeya 14 qof oo dhashay Jubaland ba ka shaqeeya dakhliga uu soo saaro xaqiiqatan anoo been ku dareen 2500 oo guri baan gelinay dakhliga uu bishii soo saaro waa $18,000 $18,000 mid sameeya mid ku jira hadda bishii gabdhaha daycare-ka sama aqaan wallahi laakiin u maleen ma dhalinyaradu inay sameeyaan $18,000 anigu waxaan u shaqeeyaa company Nike la yiraahdo Portland 20 sano u shaqeynayay hase haatee waxaan ka doorbiday inaan wadankaygii tago maal gashto oo dhul iyo baabuurna waan geynay 14 qof maanta oo ka ugu lacag yar oo qaato $200 waxayna tusaysaa oo anaga example noo noqonaysaa in madaxdan ay maanta noo sheegaan ayaga noo sheegay ilaha dhaqaale oo banaan oo ka qayb gali doona insha Allah laakiin ballan baan idinka qaaday inaan ku khasaarin wixii aad wadankaaga geliso oo dadkaaga geliso oo dhulkaaga geliso faa'iideedii adiga iyo walaalada baale waxaan idinku boorinayaa dhamaantiin inaad ka qayb gashaan insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Sheekh Axmed Nuur oo culimada reer Siyaarala gaar ahaan Kent الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعد سلامتهين سونا دواد إن شاء الله تعالى وفودا dadka meesha ka soo qayblan kulligood waad mahadsantihiin qabanqaabiyaha gabdhaha iyo dadka cuntada soo kariya kulligiinba waa gabdhahu ay yihiin insha Allah taala waan idin mahad celinaynaa anigoo ku hadlaya afka dadweynaha martida loo yahay inta kadib insha Allah taala kalimadii kulli waa la hadlay insha Allah taala culimadiina way hadashay waana ma jirto wax wixii lagu hadlay ka duwan Soomaaliduna inta badan ayna sameeynin baan daqiiqada insha Allah taala uga faa'iideysanayaa aniga oo odagtiin inaan qoraaga dadka wax qore ee Soomaalida aan ka mid ahay waxaan rabaa insha Allah taala buugaag badan oo ilaa 5 buuga ilaahay idankiisa oo meesha caaw soo bandhigi doono wixii ka soo baxay ilaahay idankiisa oo halkaas gaalada sameeyay muslimiinta inta badan ma sameeyaan inay waxay iyagu qoraan ay haddana samafal galiyaan ay ugu deeqaan dadka hadii laga jaro wixii ku baxay insha Allah taala inaan ugu deeqi doono insha Allah taala mashruuca iyo horumarinta laga sameeyo ceelasha iyo wadooyinka iyo jidadkii hospitaalada inay noo galaan oo waalidkii iyo dadkiina dhaleen insha Allah sadaqay u noqdaan idinkana dhiirigelin idin noqoto insha Allah taala buugaagtaas banaanka dhigayna kan waa taxiya tiraab waa buugi raaga ogaas oo suugaanta Soomaaliyeed ku soo afjarmi gaadhay insha Allah taala kan waa adkaar weeyaan oo caruurta loogu talagalay kan waxa weeyaan waa tahaaro weeyaan oo ilmaha loogu talagalay isagana kan waxa weeyaan waa farbar weeyaan oo rabnaan ku soo afjarno caruurta Soomaaliyeed Mareykanka farta baran weeyay oo af Ingiriisi iyo Carabi weeyaan tahaarada af Ingiriisi iyo Carabi weeyay adkaarta af Ingiriisi iyo Carabi ducooyinku buugan kalaatana waxa weeyaan jaamacada badan oo East Africa lagu dhigaa waa af Carabi weeyaan oo maxay ahayd tansiir fi Kenya la yiraahdaa jaamic baad noqonaysaa insha Allah taala markaad barato labada buug tixiya tiraab iyo buuga tansiirka markaad akhriso insha Allah taala inaad aniga barato uma baahnid iyaga aad ka dhaxlaysa banaanka yaalan insha Allah taala wixii ka soo baxana juba iyo jidadka ayaa iskale
جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haddana waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir Jubbaland ah, wasiir hore waa ninka kaliya ee Jubbaland Seattle Washington ay ka xustay markii golaha kabineetka la magacaabayay Sheekh Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland inuu noogu daran waa jeclaan lahaa inuu maaragtay reer Seattle gaar ay u soo xusaan waftiga naga gaarsiin doono intaas Cabdikariim Wagaafe ku soo dhawow. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأيضا السلام يا دمانتي نور السيارة وينو نهي إن شاء الله إلهي بمهد مدن وأنا هل كان سوء كاني عاوي وحن سود وين وفتي جبلان سيدا وحسين كاس أرو جبلان بأنا وسيرة كم ذا هي السيارة لو هذا إن شاء الله هذا هل كان واحد جوجا وسيرة جبلان واحد هو جامين يا وسير كقرشين تحرر كعالمي جا اسمه فيروس waxaa ku xiga xildhibaan Xuseen waxaa ku xiga gudoomiye Chamber of Commerce-ga Soomaaliya iyo Jubbaland labadaba oo u shaqeeya ninkaasi waa Raabi Shaafi Raabi gudoomiyihii halkan laga sheegay ee ugaasyada baan dhahayaa anigu waxaan idin leeyahay nimankaasi waa niman khiyaar ah anigana waa saaxiibaday si gaar ah u soo dhaweynaya hadalkana ayagaan siinaynaa maadaama caawa dhan aynu hadalay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaada walaalayaal hadalka waxaa u qaybin doona ruush oo ninka inoo xiriirinaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan ku soo dhaweynayaa haddana xildhibaan Xuseen. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد wasiirka gudoomiyaha salaadiinta culimada diinka hablaheena sharafta leh dhalinyarada salaamullaahi calaykum awalan wa qabla kulli shay waxaan horta jeclaan lahaa in aan ka tacsiyeeyo dhibaatadii nagu habsatay ee ka dhacday Muqdisho runtii wayna wada taabatay ilmo badan ayaa ku ogoontoobay ku rajooway wax soo kacay baa naftoodii ku waayay hanti badan ayaa lagu burburiyay oo khasaare keensatay waa dhibaato aanan indhaha ka qabsani karin u baahan dhammaanteen inaan u istaagno sida loo soo afjari lahaa waqti waliba markuu dhibkan oo kala dhaca waanu murugoonaa waan kacnaa waan iswaraysannaa haddana meeshii bay ka sii bilaabataa waagi markuu bari innagaa dhibka isku fulini hayno innagaa fududayn hayno falkiina innagaa geysan hayno ilaa mata until when will we continue to do this ilaa waqti maynu wadi doonaa waa su'aal inoo wada taal hal shakhsi maanta uma taal dhib ka dhacay inta boqol oo qof oo dhimatay wax hore inoo soo maray ma aha oo hal mar dhacay balse waatu maanta u baahan inaan iska waraysanno oona ogaano sababaha waxaan kalifaya hadday ajaaniib yihiin waxa nagu samaynayo until when bay socon doontaa insaana loo gumaado haddaan inagu isku samaynayno ilaa muddo meeqaan isku wadi doonaa inaan dhibkan isku hayn until when waa dhib inteeda leh waxaan u malaynayaa Soomaali in la baabi'iyo bay u dhowdahay sooma we are facing extinction basically sababtoo hadda waana la laynaya the rate aan ku dhimani hayno waxaynu hore u soo aragnay ma aha balse waa reality xaqiiqdaan u soo jeedsanno waxaan u baahannahay arrintan dhacday tiina midaysa inay noqoto gacmaha la isku qabsado dowladnimo aan u gudubno tafaraaruqa iyo dhibaatadana dhex taalo ilaahay inuu halkaasi inooga koobo taasidaa kadib wafdiga oo wasiirka uu hogaaminayo gudoomiyaha rugda ganacsiga Jubbaland ahne
xogayaha guud ee rugda ganacsiga Soomaaliyeed afayeenka salaadiinta oonu ku hadli doona magaca dawladda idinkaan marti inahay waxaan runtii aad ugu faraxsanahay sida wanaagsan oo aad noo soo dhaweyseen masaajidadaynu tagnay maqaaxidaha iyo businessyaalkiina aanu tagnay guryihiina aanu tagnay runtii si karaamaysan oo wanaagsan baad noo soo dhaweyseen waxaan rajaynaynaa insha Allah reer Jubbaland guul iyo gabanimo inay noogu dhamaan doonto kuwii gacmaha isqabsadana aan noqon doono Soomaalinimo kuwii horseedana aan noqon doono الرحيم waa mahadsan yihiin dadka jaaliyadda reer Seattle iyo runtii say noo soo dhaweeyeen waxaan runtii farxad gaara noo ah ani farxad gaara waliba waxaan soo marnay gobollo kale jaaliyad ku midaysan magaca Soomaalida oo Soomaali ah jaaliyad magaca Soomaalida ku midaysan oo leh community-ga Soomaali baan nahay haddii ay halkan ka dhisan tahay Seattle idinkana way idin fiican tahay annagana wayna farxad gelinaysaa maxaa yeelay marka ugu dambaysa waxa uu ina deeqi karaa magaca Soomaali baan nahay Soomaaliya magaceeda ina deeqi karaa walaalayaal dadku way daaleen waqti fara badan baa la fadhiyay khudbooyinka inkastoo inta ugu badnayd reer Seattle dhaxdooduna ay qaateen haddana barnaamijka muhiimadiisa waa barnaamijka hadda aad film ku daawanayseen idinkuna aad ka hadasheen wixii siyaasadda waxaa ka hadli doona wasiirka annaga rugta ganacsiga Jubbaland baan rabaa inaan wax yar tilmaamo rugta ganacsiga Jubbaland waxay xubin ka tahay ambareella aan samaynay ama madallo oo rugaha ganacsiga Soomaaliya ay isugu tageen oo rugta ganacsiga Soomaaliyeed oo bishii March 9keedii doorasho xamar laga sameeyay oo ay ku midoobeen 6 rug ganacsi oo isteediyada Soomaaliya ka jira waxaan anagu rugaha ganacsiga wax yar kaga duwanahay rugta ganacsiga Jubbaland waa tii martigelisay shirweynihii dawladda Jubbaland lagu aasaasay ama lagu dhisay marka state-ka Jubbaland guriyaha uu leeyahay guriga madaxtooyada guriga baarlamaanka guriyaha wasaaradaha TV-ga dawladdu ay leedahay wax fara badan baan rugaha ganacsiga kaga duwanahay oo gacan ka siinay dawladda inta kaga imaado ujeedooyinka aan leenahay maxay yihiin waxaan tagnay 2 jeer wadanka China oo heshiisyo la soo galay waxaan tagnay Turkiga magaalada Istanbul waxaan tagnay magaalada London waxaan tagnay inta badan dawladaha dariska aan nahay sida Djibouti Ethiopia iyo Kenya iyo Uganda waxaan tagnay inta badan ama dhammaan dawladaha khaliijka oo dhammaantood aan rugahooda ganacsiga is arkaynay si la soo kaashado maalgashiga wadanka ama waxa la isdhaafsan karo ama waxa la isku biirin karo waxaan runtii ku rajo weynahay mar dhow inay noqon iyo mar dheer inay noqon alla garan laakiin dalka Soomaaliya in uu dagi doono xasili doono dadkuna ay dib ugu noqon doonaan haddii Ilaahay yiraahdo meesha ugu muhiimsan hadda Seattle South community Soomaali u tihiin bayna Jubbaland waxay u tahay meel xera Soomaaliyeed waxaan rajaynayaa community-ga reer Seattle inuu qof walba yimaado kii guri ka dhisan hawa ka dhistee kii ganacsi rabana inaan soo dhaweyn doono aan u fududayn doono waxa uu ka ganacsanayo anagoo mar walba tilmaanta ku haboon siin doona hadii la hayra
walaalayaal dalka Soomaaliya waxaad ogtiin 27 sano idinka qurbaha jooga ee shaqaysta ilmihiinii wax idin bartaan halkan habi kuma tidin waxaydaan ugu ahaynaa sababka waad garanaysaan oo Minnesota soo marnay iyo Ohio xabsiyada waxaa ka buuxa caruur yar yar oo fara badan oo Soomaaliyeed London oo tagnayna sidoo kale caruur fara badan oo Soomaaliyeed baa ka buuxa Canada sidoo kale waan u soconaa waxaana lagu yiri iyadana caruur badan baa xabsiyada ku jirta caruurtaasi xirka kama soo daadanin ee hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed baa dhalay inta aan xabsiyada ku jirinna inta haysatay ama wayla walba harsantahay ama wayla murugsantahay inay ilaaliso ama waqti badan bay gelinaysaa haddaba anagu waxaan ka shaqaynaynaa oo aan hamiganaga iyo ujeedkanaga ugu muhiimsan uu yahay meeshii ugu yaraan haddaydan degin aad ku soo dalxiisi lahaydeen idinkoo ilmaha wata mararka qaarkoodna ilmaha aad 3 sano af Soomaaliga si idinku soo bartaan intii aad ku celisaan waalidku inta badan way soo noqdaan odaygu shaqaan u noqon boo oran baa u badan tahay islaamtu si kale u ilaalinaysaa duqiyo way daba socotaa marka ilmaha 3 qaraabo ku haysi iyo habar yar iyo walaalo Soomaali laga waaye meeshaasaan anagu idin diyaarinayna hadii la yiraahdo laakiin waxa la rabaa qofku inuu gacan ka geysto dib u dhiska wadankiisa oo uu wax ku darsado ilmihiisana uu sheego yiraahdo mar baan wax ka geystay iskuul la dhisay gobolku doonimaado ilaa maad Zaylac ka geysatid maad Berbera ka geysatid Boosaaso maad ka geysatid Cadaadad maad ka geysatid gobolkay doonimaado Soomaaliya meel kasta oo gacan ka geysatid waxay la mid tahay adoo Soomaaliya oo dhan gacan ka geystay tawa codsiga uu xildhibaanku jeediyay oo aan xoojinayo barnaamijka aan u socono barnaamij muhiim ah Soomaaliya ka socda rugaha ganacsiga ay hormuud ka yihiin oo $1 dalka uu ku dhiso $1 dalka uu ku dhiso barnaamij weyn buu sameeyay gobolada qaar baa mar hore bilaabay sida gobolka Banaadir oo 43 wado waxana dhameystiray waxana ay socdaan cidii xusata wadada number 4 airport ka timaada kaliya Turkiga u dhiseen wadada wadnaha ganacsatada dhistay iyo dadka $1 dalka ku dhiso wadada Sodonka hadda dhameystir bay u dhowdahay 18 kilomitir way wadooyin yar yar oo 500 mitir 1 kilomitir 5 kilomitir baa iyagana socda oo jira waxaan rabnaa inaan inagu markaan isku tashano oo dalkaaga $1 aad ku dartid baa bani aadam kale uu ku caawin karaa anaga shirkii London aan tagnay Soomaaliya dal ajnabi oo caawin doono lacag intuu galiyo ama laami u dhisa ama airport u dhisi doonaa ma jiro waxa lagu dhisayaa markii adigu aad qayb la baxdid oo la arko inaad dadaalaysaan laakiin markii la arko dadkii dalkan lahaa oo ama reer hay soo fiiriyeen waxa 27 sano in burburiyeen dad dhamaantood inay libaxsan ka taabta ani ma taqaanaa ani miyaad taqaanaa dad wada leh kulligood maxaa laga aqoon Soomaali baa tahay 27 sano dalkaaga burbursan yahay dadkaagi in jeelasha adduunka ay ku fiirsan yihiin taniyo Hindiya in badda Hindiya liqday ama Mediterranean-ka ayaga oo baxsada qaar fara badanna qaxootiyada ayay ku koreen ayaga oo wax ka xun oo qof bani aadama oo mutaysto oo qaxooti ka xun aysan jirin marka yaad ka sugi adu Soomaali baa tahay anu ma taqaanaa haddii qofku yiraahdo hawaan ku aqaanaa Soomaali baa tahay dalkaagina uu burbursan yahay wax macaan oo qiimo adduunka u fadhida ma jirto waxa la rabaa inaynu dib u xisaabtano qof qaawan haddaad aragtid ama xanuunsan ama jiran ama waalan qaawanida asaga may dhibaysaa ma fahamsana asaga uu iska socdaa uu qaawan yahay qof qaawan hadduu inuu quman yahay uu isla ma buka ma jirani waan caafimaad qabaa waana qaawanay hadduu ku yidhaa kani waa yar jiran yahay soo odhanaysa qofka Soomaaliga laabta taaban
weliba qurba joogta annaga kuwa gudaha jooga wayba rafaadsanaayeen oo 20 sano iyaba burbur iyo qaylo ku jireen idinka qurbaha jooga Soomaydaan arkin community-ga Soomaalida isku meel dagaysa inaad isu baahantiin annaga Kismaayo haday Soomaaliya Zaylac dadka jooga ay guuraan waan soo dhaweynaynaa kuwa jigjiga jooga haday guuraanna waan soo dhaweyn xidhifka u sheeyay xidhifka u sokay mid baad waxaad ka faa'iiday dhakhtar adu dhakhtar ma tiid ilmaagiiba ku daweyn Zaylac inuu ka soo guurayso faa'iido kuma mid baa waxaad ka faa'iiday engineer inuu wadada ku dhiso mid baa waxaad ka faa'iiday inuu furniture yahay wax ku uu kuraas ku sameeyo mid baad ka faa'iiday inuu dukaanka aad leedahay wax ka gato hotelka aad leedahay inuu ku seexdo marka qof isku filaan oo meeshan aanu baa ilaashan dalkiina waa cidla Soomaaliya waxaan mar iyo laba iyo saddex inta shir aan qabanaynay ama dibadda aan aadaynay annaga rug ganacsi ahaan Jubbaland gaar ahaan dadka ganacsatada waxaan ugu baaqaynaa Kismaayo waa magaalo ganacsi waa Dubai oo kale Soomaaliya waxa loo aqoonsaday rugta ganacsiga dawladda federaalka Soomaaliya inay Kismaayo tahay caasimadda ganacsiga Soomaaliya markayna ka buuxsameeyna boos ka gado guri ka gado meel ganacsi ah ka samayso Soomaali baa tahay xaq baad u leedahay inaad guri ka dhisatid inaad hotel ka dhisatid inaad villooyin ka dhisatid xaq baad u leedahay midna waan idin sheegay gaar ahaan dadka reer Jubbaland ee qurba joogta waxaad ogtihiin waxa dhacda wax fara badan gudaha Soomaaliya wixii qiyam iyo sharaf ahaa oo dhan te wax fara badan baa laga tagay waad ogtiin waa dhaweyto khaliijka dawladaha waxay codsadeen 50,000 oo gabdhood oo booysooyina Soomaydaan maqal idinka naga maqlay oo media iyo waxyaabo fara badan ogba reer Jubbaland 3,500 oo gabdhood baa soo hagaagtay gabadh Jubbaland ka tagtay oo khaliijka booyso ka noqotay miyaad maqasheen mana dhici doonto annaga Jubbaland waxaan nahay California iyo Soomaaliya California soo isteediyada Mareykanka meesha ugu hodansan ma annaga Soomaaliya waxaan rabnaa inay dalka Soomaaliya oo dhan u xasilo oo nabad noqdo laakiin Jubbaland waa meesha mas'uuliyadeeda aan u dhaaranay aan joogno waxaan rabnaa hooyada markii ay foolanayso Trump Soomaalida kale haduu diido inuu yiraahdo Jubbaland ka soo jeedaa waa Dubaydi ganacsiga ha loo ogolaado fiisada wax loogu xisho ayay leedahay Soomaaliya oo dhan bay deeqi kartaa dawladaha dariska ayay gaarsiin kartaa waxa ay Jubbaland waxa gudaha ku jira Soomaaliya ina warumahayno shirkada kale iyo ajnabiga waruhaya laakiin waxa banaanka yaalaan ka hadlaynaa inaga waxaan nahay xoolo dhaqato beerley iyo kalluumaysato saddexdiina wax kulansaday Jubbaland baa jirta waxaan rabaa reer Jubbaland mas'uuliyad gaar ah idin saaran annaga qurba joog tira badan baa timaada ninba haday ka hadlay waan imid waa runtii qurba joog tira badan baa timaada laba qaybood way soo fiirfiiriyaal kuwa aanu bixinay wuxuu rabaa inuu tago laba wiig maqnaada ama saddex wiig ama bil wuxuu ku warami lahaa reer Seattle oo uga sheekeyn lahaa oo la soo noqdo soo fiirfiiriyo way kaasi hebel baan arkay kiina hebel aana waan arkay waxa soo haystay kiina hebel aana waan arkay intaas rabaa inuu ku sheekay qaarna in badan waliba Xuseen baa cadhoon markaan ka sheekay Fayrus qudhigiisu waa qurba joog kale horta ruux baa wuxuu yiri darwiish ruush miyo aha ninkii lahaa reer Seattle hal nin baa anaga qurba joog dhawaan qurba joog ama Ingiriis ka yimaado ama Talyaani ka yimaado dawladda Jubbaland 75 taqriiban 47 qurba jooga 34 wasiirna taqriiban 20 baa qurba jooga konton iyo kowga federaalka naga aadayna konton iyo kowga waxaan dhaninayaa ma hubo inay 9 meelaha ay dadkii gudaha joogay yihiin inta kale waa qurba joog ninka asagoo in dhala iyo iman oo ordaya qurba joogta wuxuu leeyahay wax kale u socda ma jirto siyaasad buu raadinaya mid iyo laba iyo saddex iyo afar dhinaca ganacsiga iyo barnaamijyada horumarinta u socda way jiraan
waxaan rabnaa in dhinaca muhiimkana waa dhinaca in loo soo jeedsado gaar ahaan gabdhaha caruurta aad halkan ku haysaan soo celiya caruurta soo celiya wadanka waagii hore laga carari jiray 91kii annaga ilmaha hadday xabad dhowdhow tiraahdo la carari jiray hadda maaha shalayto musiibada dhacday ma arkaysaan subaxii waxaad arkaysaan hoteelada iyo dhulka la dhigay oo la dhisay dadku waxay diidan yihiin inay cararaan waxay rabaan inay challenge gareeyaan noloshan adag oo dalkoodii wax u dhaamay waayeen marka idinka halkan waa run waxbarashaad ku haysataan nabad baad ku haysataan laakiin qabowna wuu jiraa waxyaabo kale fara badan way jiraane waxaan rabaa inaan runtii idin mahad celiyo arintaa waxaa maray guddiga abaarahan yaan ku jiray dhaqaalaha qurba joogta dalka Soomaaliya badbaadadii qaybtaad ka qaadateen aad iyo aad baad u mahadsantihiin Seattle gaar ahaan waxaan mar labaad idinka mahad celinayaa sida aad ugu midaysantihiin community Soomaalinimo taasaana wax idin taraysa waxba qabiil iyo reer iyo junfa idinma tarayso aad iyo aad baad u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullah waa soo xiranaynaa wasiirka noo soo xiraya qorsheynta iyo xiriirka caalamiga haddana waxaan ku soo dhaweynayaa ugaas Cumar Xiirey oo ah afhayeenka isimada Jubbaland ee la socda waftiga Jubbaland ku soo dhawow ugaas madax dhaqameedka iyo culimada iyo lafdhabarta gabdhaha Soomaaliyeed iyo aqoon-yahanka iyo cid kale oo hoolka ku sugan bahda saxaafadda cid kasta oo hoolka ku sugan salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay baan mahadnaqaynaa halkan ugu kulmiyey marka labaadna dadkii halkan soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan ayaguna waa mahadsan yihiin dawladdii baa hadashay gudoomiyaha ganacsigana waa hadlay xildhibaankana waa hadlay wasiirkuna waa gabagabeynayaa waxaan leeyahay tacasidii la diray inta horaan ku raacsana waxaan rabaa ujeeddadii abbaarkan waftiga waa laydiin sheegay Soomaalida way xan badan tahay annaga qaaraandoon ma nihin qolo tuugsanaysana ma nihin intaa in la ogaadaan rabaa waxaan u imaanay maadaama wadankii dawlad ka dhalatay dawlad goboleed Jubbaland la yiraahdo mid qaran oo lagu midaysan yahay ay jirto geela waana wada jirtaa waana kala jiraa baa in qurba joogtii iyo dawlad maamul goboleedka Jubbaland la isku xiro oo aad moodo gaabka inuu banaana in wadankii la maro oo qurba joogta kaligeed boorsada iska wata Kismaayo soo degaysa aynan ahayn gabdhihii iyo waxgaradkii iyo dhalinyaradii iyo culimadii iyo dadka dhabarka ahaa in masadka la gaarsiiyo dawladoodii dadkooda la isku xiro taasna hadda dawladda mas'uulka ah horta ujeedadu waa sidaa weey marka arrin la gabagabeynayo la bilaabo Soomaalidu aad bay u fiican tahay laakiin markii la yiraahdo waxa la bixinayaa way kicaysaa kicida ku badan meelba waa sidaa weey waxa weeye dalkii wax ku darsada hal waa idin sheegaano Jubbaland nin kasta oo Soomaaliya Jubbaland buu yiri waa meeqa gobol 18 gobol Soomaa ama waa koonfur iyo waqooyi weey nin kasta oo Soomaaliya oo inta ka kooban oo Jubbaland laga helayna ma jiro maxaa sabab waxa weeye waxaan dhabarka u dhiganay in aan nahay laf dhabarta Soomaaliyeed marka laga saaro maamulka dawladda federaalka sida daraadeed xilkana saaran waxa weeye xil Soomaaliya weey laakiin waa Jubbaland baash waxaan rabaa hadalka waan soo gaabinay dalka wax ka dhista hal waa jirtaa annaga sahan baana nin waliba Jubbaland iska noqon maayo rag baa ku dhintay ku hanti beelay shaafica wax shil noo haysta male wixiisi horan ooga qaadnay dawladdan ku dhisan wuxuu rabana ma laha laakiin mudnaantiisaan seeyna gudoomiyihii ganacsiga waan ka dhignay federaalkana waan ka dhignay wuu haysta kaarka wuu haysta
xoolana ilaahay baa u haya wax kale noogu abaalgudna waan weyne dalka waa lagu agoontoobay markaad Kismaayo tagtaan waxaad arkaysaan 2,000 oo gurguranaysa oo naafaa kuwa geeriyoodan iska dhaf oo hooyadood ma ku gablanta adeer dalka waxaa loo baahan yahay ciyaar lagu helmay dhiig in la waraabiyo way waa in dalka la xoreeyaa way yaa laga xoreyn 500 kuwa dilay way وبحان أنه كحرون جبل هذا قبيل بان كحرون الحمد لله رب العالمين هذا يقول نوع كيسنا قبيل الله ما يا تاسو عن كفات حسن هالنوع كنا عندنا جبل لام بنا سومالي بنا وزير كأنه جايبين هو دركتان سومالي بنا مدعينه كحين كوا دركتان غوي الصوماليات on meesha wax ku lahayn ma jirto laakiin markii doorashada la gaaro Jubbaland ba meesha doorashada ka gali doonta inta kale Soomaaliyeedna sida gobolada kale way la degi doontaa mooskuna moosaska iyo cambaha mu ka mid noqon doona waayo mooska cambaha dad badan ba xagga meel ba uu ku yaala baalka marka waxaan leeyahay waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin gabadhii halkaas hadda qofka ku amaano baa u jeceshay gabadhii halka naga amaanaysa aad bay u mahadsan tahay odayga halka ka hadlay aniga taariikhda ka sheekayna waa mahadsan yahay haduu baxay haduu joogo hadii kalaba kulligiina waa mahadsantihiin aad baan u mahadsantihiin culimadana waa mahadsan tahay inta soo dahaday inta maqan salaan naga gaarsiiyay ayagana waa mahadsan yihiin inta imaatana waa mahadsan yihiin inta halka ka qayb qaadan doonta way mahadsan tahay انت كقيب قائد دونين وين ما حسنت السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وسيركا هي xildhibaanka gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo waaska guud ee Jubbaland aad baan u salaamayaa salaan kadib maxaa ku dhacay malay maqlaa horta dadka ka soo qayb galay ee reer Seattle ah ee imaamkeena ugu horeeyana dhammaantiin waan salaamayaa iyaguna intaa kadib waynu arkaynay dadkii maanta martida inoo ahaa ee meesha yimid khudbadoodii iyo waxay qabteen iyo waxyaalaha loo baahan yahay marka haddaynu inagu reer Seattle nahay waxaynu ahaan jirnay dad runtii aad u fiican oo dadka martida soo dhaweeya marka waxaan go'aansanay ka reer Seattle ahaan barnaamijkaas ay mas'uuliyiintu wadaan galabta aminkaaban waxoogaa odayaal oo isku aragnay waxay ii soo xilsaarteen inaan halkan ka jeediyo inaan Seattle ahaan isku afgarannay inaynu arrintaa ka qayb qaadanno oo aynu tabarucaad kaga qayb qaadanno oo ka Seattle ahaan lacag $60,000 inaynu jidkaas kaga qayb qaadanno oo aynu ku tarsanno marka intaas baan macnaha ogeysiiskaasaan u istaagay waxaan rabaa dadkan faraha badan ee gabdhaha iyo wiilasha iyo culummada iyo khiyaartaba leh intii joogtay ee shirkaa joogtay way joogtay intii ni maqneed arrintaa ma nala qaadateen oo innagu ma isku adhnaa reer Seattle ahaan hadduu ilaahay yidhaahdo arrintaasaynu qaadannay insha allahu saasaan la rabaa wafdida qiimaha badanna waxaan u sheegaynaa annagoo haddaanu reer Seattle nahay annagoo isku duuban oo soomaalida Seattle ka kooban meel walbaba Soomaaliya ha tagtee 60,000 baan jidka aad sheegayseen ku tarsannay hadduu ilaahay yidhaahdo idinkuna inaad naga ku daantaan marka intaasaan rabay inaan u istaago marka aad baad u mahadsantihiin shirkiina si fiican buu macnaha inoogu soo gabagaboobayaa gabdhihii xafladan macnaha soo abaabulay iyo wiilashiiba aad bay u mahadsan yihiin waanu idiin wada mahadcelinaynaa waana la wada mahadsan yahay haddana balaynu wasiirkeenna soo wada dhoweyno waxaana la rabaa wasiirka dhammaanteen sacab aad u qiimo badan inaynu ku soo dhoweyno hadduu ilaahay yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
عثمان حسين حاجي فيروس وزير كقرشينتي إسكاشي عالمي جبلان وسودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن سلامة يا سلادينتا علماء الدينك oday dhaqameedka haweenka iyo marti sharafta kale meeshan aaba ka soo qayb galeen xafladan quruxda badan mar labaad waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaan kadib waxaan rabaa inaan aaba fursad ay ii tahay in aan meeshii sidii walaalahay horeba u sheegeen tacsiyad aan u diro dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan dadka ku geeriyoodeen musiibada shalay ee dhacday ilaahay waxaan uga baryaynaa jannatul firdaws inuu ku waraabiyo kuwa dhaawacmayna inuu ilaahay degdeg ku caafimaadsiyo insha Allah inta kadib waxaan rabaa si gaar inaan uga mahadceliyo qabanqaabayaashii guddigii qabanqaabada xafladan quruxda badan oo soo qabanqaabiyay oona suuragelay caawa inay suura gasho waxaan rabaa salaan sharaf leh oo idinkaga sida madaxweynaheeni sharafta lahaa mudane Axmed Maxamed Islaam oo nabadoonka Soomaaliyeed inta kadib waxaan rabaa reer Seattle mahadgaar waad ku mahadsantihiin dhageysiga aad dhageysateen khudbadooyinka aan idin soo jeedinay iyo dalabkii oo ahaa waddankeenan dhisanaynaa reer Seattle waajib idin saaran waa waajib qarameed waddankii tawaruuxa dhinacna waxaan dhihi karaa tawaruux dhinacna waxaan dhihi karaa waajib qarameed oo na wada saaran kulligeena marka inta tawaruug aad ku bixiseen sida duuduubka waad ku mahadsantihiin waxaan leenahay anagu sharaf bay inoo tahay reer Seattle waxay u tahay sharaf gaar ah maxaa yeelay Seattle Mareykanka dadka muwaadiniinta iyo dadka mas'uuliyiinta Soomaali ka yimaadaba sida badi waxay tagaan Minneapolis iyo Columbus meelaha xuduudaha u dhow laakiin Seattle markaad tiraadid waan soo aadi 5 saac kal diyaarada ku sugaysaa waa safar kale marka imaatankeeni iyo sida uga qayb qaadasheen waxay muujinaysaa mas'uuliyiinta kale Soomaaliyeed inay ku sii dhiiradaan inay waddankan qaasatan Seattle waddankan ama gobolkan Washington State inay imaadaan waxay arkayaan sida reer Jubbaland loo soo dhaweeyay sida loo maamusay waxayna ku soo dhiiran doonaan kuwa kale ba haday ahayeen kuwa federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada kale ba in mar dhow insha Allah anaga bacdigeeni مسؤولين كلا إنها صار دوين دون تانا دوي لاحد مو ولا ليال وحمان تلاقي هاد لا يوا واحد أركي جرتين رير سياتل دديال فربضان هدي وفديهين يو هدي قف سياسي أهبا أو هرتينا استاجاي أو استاجايو إن لواشيود إن عضلسي أو لا عضي أو فوت وساقلا qof qaraabo salaan ambo barnaamijooyin kala u iimaanay laakiin anagu caaw waxaan u nimid dalkii aan anagu wada leenahay oo Jubbaland ah horumarka ka jiro aan kala qayb macna ka qayb qaadano dib u dhiski dalkii aan ka qayb qaadano dalka aad maanta dhistid waa beri waxaad ku faani lahayd way shilin aad maanta meel aad ku darsatid waa wixii beri aad ku faani lahayd waxa maanta laga hadlayo waa dhisidda مشاريع ويبدن تاي وإلا اللح مشاريع ويوحي ما أنت هنرمنا جبنا إن كفلنا لكن تنحدى أو بريسينج أهوليبا وجدك أو كسر بلا وانا عامس كأفرط إلى 5 كيلومتر جدك أصلا هذا أنا وكلي مري مايو هذا وكلي مري ميسيد عد كستو أنا نجمته إيو كوا كلا إيمان دونا با أنا وان عدف كجوجين وحلاقي عرور هذا كوا كلا العالم بين جدك مري دونان ما وحيالا ما أنت كسمع مركا إيماد أتكو فاني لديه لد أنا والعقتي تيدي هاد قيبان كو درسدو جد كان مركا عنو جاجن عدوك شيء كينيس عنو جاجن وحولي أبيه جد كان قيب كل شيء والعقتي سقيب وكو درسد مركا حشمت يو يعني كرامت أي نوت هاي إن أرنتا قابقس أودا قانقشون جبلا وحن كحلينا ما أنت هرمر
horumarka sidiisana waxaa waaye wuxuu daba socdaa nabadda sidaad ka warqabtaan Jubbaland waxay ku soo gudubtay qeybo amba barnaamijyooyin fara badan maanta waxaan maraynaa nabadda Jubbaland maanta cid kasta Soomaali way ka sheekeynaysaa ciddaas nabaddaas kuma imaan dheedheel rag baa dhiig u bixiyay rag baa dhaqaalahooda ku baxay rag baa waqti u gali intaas dhanna waxay ahayd inaan anagu sii fadhina ma aheene idinkaan idin diyaarinayni sababtoo waxaan ogsoonahay qurbaha anigu lafteeda idin la hadlay qurba joogan ahay wafdiga maanta socda markaan ka reebno gudoomiyaha intayna kala qurba joog way waan dareensanahay marka dalka aan joogno xaaladiisii caruurta aan meesha ku hayno xaaladoodan ka warqabnaa caruurta meeshaan u ceelin laheen ayaa anagu dib ugu noqonay si markaas berito cunugan oo maantana meesha aan waxna samayn karin waxa laga yaabaa caruurta maanta meesha joogto badinkoodii hatta kitaabka quraanka 114 qaarkood inaysan dhameyninba ama ka warqabin qaar waxa laga yaabaa marka tiraahdo assalaamu calaykum oo ku dhaawad assalaamu calaykum uusan ka saynin marka waa waxyaalahan anagu dib ugu noqonay dalkii in horumarkii oo dalka maanta ku jiro aan qayb uga qaadano Jubbaland waxa markuu u baahan tahay in la barbaariyo barbaarintuna ayaar ma aha cunug kasta aad dhashidna wuxuu ku xiran tahay amba waxay ku xiran tahay sidaad u barbaarisid ku xiran tahay cunuga markuu dhasho caasina ma noqdo baarina ma noqdo laakiin waxay ku xiran tahay waalidka sidoo uu soo barbaariyo ku xiran tahay waalidka sidoo wax u soo baro cunugan hadaad u soo qorshaysid inuu noqdo cunug berito professor taqtar culuma waalidka sidoo uu soo barbaaray ku xiran tahay laakiin cunug oo waalidkiisii oo ah hadduu waalidka dayaco cunugaas wuxuu u soo barbaari qaab aan waxtarba lahayn taas marka waxaan ka wadaa Jubbaland maanta waxay ku xiran tahay horumarkeedii qaabkan anagu soo barbaarinay ku xiran tahay Jubbaland horumarka maanta ka jira waxa waaye kulligeeni waxaan aaminsanahay ragiina inta joogo kaalin ay ka qaadateen kaalin qurux badan aad ka qaadateen laakiin weli waxaan leenahay kaalin muuqata laga qaato waan dareensanahay anigu qurba joogta kamid ahay oo sidaan hore u yiriba dadka bad waxay dhahaan wadankii amni ma leh lama soo noqon karo lama imaan karo wadankii noo xureeya maya wadanka kulligeena waxaan u nahay muwaadiniin oo wadanku wada leenahay anigu si gaar uma lihi adigu si gaar uma tiid ninka mas'uulkana wadanku wuxuu horumarsin karaa dadka muwaadiniinta wadanka joogo haday qurbaha joogaan iyo haday magaalo aan wadanka dhexdiisa ay joogaan inay kaalin ay ka qaataan wadanka xureentiisa dhaqaale u baahan yahay wadanka xureentiisi wuxuu rabaa dhaqaale oo maanta cunuga dhaawacmo meelka aad geysad u baahan tahay dhaqaale waay wiilka dhinto caruur ka tagayo caruurtaas waxay u baahan yihiin in la daryeelay u baahan yihiin marka waxaan leenahay marka kulligeeni iyo kuwa maanta aan meesha fadhin ay maqlaaya gaarsiinta farinta aad Jubbaland waxay tahay wadan amba deegaan Soomaali maanta ay u wada dhantahay Jubbaland waxaan ku tirnaa ilaa 36 beelo inay degan yihiin wayna ku kala badan yihiin laakiin horumarka iyo siyaasadda la isku ma xiro siyaasaduna teedi waa gaar horumarkana in laga shaqeeyo amniga maanta aan ka sheekeynayno haduusan horumar lahayn dhalinyarada jaamacadaha ka soo qalan jawinay dhalinyarada maanta qaxootiga lagu soo celinayo ee wadanka ay dib ugu soo noqdeen hadaysan shaqo haysan ayagu laftirkooda maxaad u malaysaa inay sameynayaan waxay ku biirayaan kuwa maanta burcadiimeedka ay ku biirayaan laakiin kuwa kaliya shaqo waxaan ugu abuuri karnaa idinkoo wadanka ku soo noqday ganacsi furtay mashaariic fara badan wadanka dib ugu soo celi kuwa laftirkooda shaqay helayaan meel ay ku mashquulaan ay helayaan dawladuna dhaqaale ay ka sameynaysa dhaqaalahaas oo ah in wadankii amnigiisa ay ku hormariso marka waqtigii waan dareensanahay cariiri waay waan jeclaan lahayn intaan in ka badanba inaan wada hadalno laakiin qaarkiini berito waa asniin howlka waxaad moodaa in uu yarsii yaraanayo waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad reer Seattle Washington waad mahadsantihiin shirkan waa inoo xiran yahay noqday inaan in yar uga mahad celiyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladan insha Allah taala waxaan rabaa intaysan dhamaanin in insha Allah taala aan ku soo dhaweeyo sheekheeni barasafoorkeeni doctorkeeni Sheekh Axmed Nuur insha Allah taala oo kelmadii ducadan ay noogu xidha
insha allahu tacaala ogeysiis yarna inoogu diray insha allah بسم الله waxaan rabaa kaliya inaan idinka farxiyo insha Allah haye dhagaha ma taagteen masuuli waay waxaan rabaa farxad inaad meesha kala tagno insha Allah taala waftiga mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada waxaan ka cudur daaranaynaa lacagtayada oo yar 60,000 laakiin waxaan rabaa inaan idin bishaareeyo waxa la yiri الله سبحانه وتعالى وحجي إليها وتر كثرة أو إسدير إن الله وتر يحب الوتر وحرباء كلا إن شاء الله تعالى إن رنت ودعيو ولا الجمال إن لجوجي أو كسمايا كيبل هل كنتو كقاجي وضن كانت ضدك أوهر سيدي إن شاء الله تعالى نين أرضي وناكسن وصاحب كيا عاوانو وحربي intaan haddii la igu sii dayn lahaa 100,000 baan ka ururin lahaa laakiin waxa weeye waa ka badbaadeen insha Allah taala waxaan rabaa lacagtii 60 ka ahayd tiro furan baan ka dhigaynaa rasiyaala ilaa iyo 100 inay wadaan marka $1,000 baan ku daraynaa insha Allah taala waana tawaa diyaar insha Allah taala noo dhig halkan idin insha Allah waxaan rabaa lacagta haddii Allah idmo waan furaynaa waxaan rabaa in albaabka furno 61 bay noo maraysaa hanaga xidhina insha Allah taala naam saad wasiir haye hagtan waxaan filayaa waa gacantii ugu horeysay reesiyad tiin way soo socotaa tan bilaabayna insha Allah taala marka wasiirka ayaan ku sii wareejinayaa haddii Allah idmo waa jidka laga dhisayo Kismaayo ilmaha yaryar ay mari doonaan gabadha uurka leh lagu qaadi doono isbitaalka lagu cararayo ayaan waxaan rabnaa insha Allah taala in looga qayb galo reesiyaal Washington ku talagala insha Allah taala 100,000 baan buuxinaynaa insha Allah taala gabagabadii waan ducaysanaynaa insha Allah taala mar labaad waxaan si gaar ah walaalayaal ugu ducaynaynaa dadka ku dhamaaday rasuulku wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam dadka xariiqa ku dhinta xariiq waxa weeye gubashada dadka gubta dabka ku dhinta dadka shuhadada ay ku jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana Allah u boogadhayo Allah inoo caafiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala dhibaatada Allah inaga qaboojiyo dad badan baa ka qayb qaadanaya ilaahay inaga qabto cadawga Soomaaliya oo dhan ilaahay inaga qabto dadkeena qulubtooda Allah mideeyo وحددنا إلهي سبحانه وتعالى هنو مديو إلهي سبحانه وتعالى قلبنا الله سوجديو كلمتنا الله مديو إلهي سبحانه وتعالى قلوبتنا الله مديو حمانتا يا قبيلك يا قرنك الله نجسارو إلهي سبحانه وتعالى ضد ولا لا أو إخوتي ولا النمذي للشيء كده حيث الله نجدقو إلهي سبحانه وتعالى ريرها اللي جيرو الصومالي ودم بيتعصدوا ما أنتوا تعالى صبري إيمان الله نجسي كل يوم بصبري إيمان الله نجسي إلهي سبحانه وتعالى سجار قيسسكي اللي جيرو ذي صبري إيمان الله وسي كوي اللي جيرو ذي صبري إيمان إلهي سبحانه وتعالى هكسي إلهي سبحانه وتعالى أمدنا الله نوم ذيو إلهي سبحانه وتعالى حمانتنا الله نجبحيو وحددنا ضدكنا الدولة دين يا مسؤولين تين ضدك وحال إلى ضدك مسؤولين تا ولو دعية مر والبضدك الصوماليات ضد دعية ما وين لو دعية أو إلى إلهي والصالحين مصلحين نوردك أو كوا جعنت النوها يا إله الصالحين نوردك إله مصلحين نوردك إلهي سبحانه كوا جعنت هذا أمده وكوا جن الله نوردك إن شاء الله تعالى جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وما سنت إن شاء الله.